السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا كورسات فيديو إديتين كورسات وحن كبر دونا كابكات فيديو إديتر. كابكات وسوفت وير فيديو إديتنا كاس أو سنة كان لابد كل عتني أفرت كم ده سوفت وير هذا آد كأسرية الله استعمال فيديو إديتين دتك باللوجة الربع إني برتان فيديو إديتين وحاد وسهلا وأبرن كرتها كابكات وحن يدين ديارنا كورسات لما يسترن كاس أو كسمين كرتو مقالة عدو استعمال كرتيت السوشيال ميديا سيدا تيك توك فيسبوك يوتيوب يسيدا كلا مقالة عد كسمين كرتو حيسيس ganacsiga ku soo dhawow koorsada cusub ee video editing-ka CapCut video editor fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelka subscribe sar casharka koowaad waxaan ka bilaabaynaa marka ugu horeysa waxa la soo degi doonaa CapCut waa laba nooc mid loogu talagalay in lagu isticmaalo mobilada iyo nooc dambe oo hadda loo isticmaalo in lagu edit gareeyo videoyada ayuu la isticmaalayo computer sadarteed anaga hadda casharada waxaan ku qaadan doonaa midka computerka ah sadarteed waxaan la soo degaynaa CapCut PC linkiga ugu horeeyo ku dhufo kadibna wuxuu ku keeni doonaa page-kan waxaad dooranaysaa button-kan ay ku qoran tahay download for free sida ku muuqato waxa bilaabanayo downloadiga an second uu soo degaya sababtoo ah aad uu yar yahay isagoo dhanba waa 2 MB maadaama hore aan u soo dejiyay mar labaad uu soo degay waxaan sameeynaa marka waa ku install gareynaa si loogu shubaa right click leh kadibna waxaad doorataa open ama laba mar click si yes dooro kadibna wuxuu bilaabi doonaa installation-ka waxay waqti u qaadanayaa installation-ka xoogaa waqti ayuu qaadanayaa ku shubitaanka marka waxa loo baahan yahay inaad dul qaadato koobkaaga shaaha soo qabsatid هذا 95 مرة يا وحيران وديمن installation كوانا دماضي وحنو كبكات نو شيء يا كمبيوتر كان إنه معناها حمل كرو أو لو استعمال كرو كبكات كا إنه شيء يا كمبيوتر كا وحلنا confirm حنوصل فرمي CapCut maadaama qofku uu ku cusub yahay oo kale wuxuu ku tusi doonaa tutorial yar oo ku tusaya qaabka aad u isticmaali kartid okay halkaas waxaan ugu dhamaaday installation-ka hadda waxaan bilaabaynaa sidee video loo soo geliyaa project cusubna aad abuuri kartaa meesha ay ku qoran tahay new project click si wali wuxuu na tusayaa qaabka aan u isticmaali lahayn wuxuu ku tusayaa sida u soo geli kartid video hadii aad doonto soo jiido ku leeyahay nagastire sample ahaan hadda video na tusay isaga okay video-ga markuu iska tirayna marabno waxa tagaysaa media markii aad tagto kana asagana aan meesha ka saaro media markii aad tagto CapCut-kan sidaan uu yahay qaybtaan waxa lagu talagalay video-ga in laga soo geliyo ama sawirada ama codka wixii aad doonaysid qaybtaana waa meesha aad ka arkaysid muuqaalkaaga qaybtaana waa meesha effect ama wax markii aad sameynayso waa effect control waa meesha aad ka bedeli lahayd waaye muxuu ah property-ga effectiyada aad ku soo darsatay qaybtaan hoose waa timeline ama waa qaybta loogu talagalay video-ga aad jarjarayso ama aad wax ka bedelaysid meesha la soo dhigayo sadarteed waxaan tegaynaa import waxaan dooranaynaa video-gan open deh sida u jeedo video-ga adigoo aan wali aan soo gelin qaybta timeline-ka waxaad samayn kartaa inaad play dhahdid oo aad aragto video-ga sidoo kale waxaa awoodaa oo aad samayn kartaa video-ga qayb ka mid ah inaad soo jarto saan oo kale intaad dhahdo laba dhinac ka soo jeedid qaybtan dhexe aad soo qaadato meesha aad soo dhigato hadii aan doonana waxaan samayn karnaa video-gii oo dhan ayaan soo gashan karnaa marka video-ga dhan aan rabnaa hal mar inaan soo wada gelino sidiisa hore aan ku celinaynaa waa soo jiidaysaa waxaan leedahay ku soo dee meeshaan waxaa kaloo aad samayn kartaa weliba video-ga markii aad doorato calaamadaas balaaska inaad taabato automatic wax lagu soo gelinaya qaybtan hoose ee timeline-ka sidaas ayaa loo soo geliyaa video okay waxaan ku xijinaynaa sidee video aad u jari kartaa ama u kala jari kartaa video marka aad kala jarayso waxaad u baahnaan kartaa video-ga inaad kala jarto oo wax dhex geliso waxaad u baahnaan kartaa videoga qaybta hore ama qaybta dambe ama qaybta dhexe qayb kamid ah videoga inaad jarto oo aad ka tirto
ujeedooyin fara badan loogu talagalay in videoga loo kala jaro. Okay, waxaan baranaynaa marka qaabkee loo kala jaraa. meesha waxaa noo yaalo saddex calaamad ugu horeyso waa split ama kala go ama kala jar. videoga meesha aad doonaysid ay calaamada gelinaysaa. videoga marka hore active gareynay kliga ku siinaysaa, kadibna waxaad taabanaysaa calaamada split marka aad dhahdo waa ujeedaad videoga waa kala jarnay, waa part 1 iyo part 2. okay, haddii aan haddana rabo qaybtaan inaan jaro sida hadda oo kale, waxaad taabanaysaa calaamada split. wuxuu leeyahay shortcut ahaan adigoo aan muuska isticmaalaynin keyboardka waxaad samayn kartaa control P marka aad taabato wuu kala go'ayaa videoga. okay, waxaa kale oo jiro calaamadan kale waxaa la yiraahdaa delete left, tan waxaa la yiraahdaa delete right. tusaale ahaan haddii aan klik ku siiyo videoga waa la kala jarayaa, qaybta dhanka midig xigtana waa la tiraa. okay, tan kalena aan fiirino delete left isagana wuxuu ku sameynaa sida hadda oo kale, videoga wuu kala jarayaa, qaybta dhanka midig xigtana wuu tirayaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa haddii videoga aad kala jarto oo aad doonaysid qayb kamid ah inaad tirto. kasoo qaad meeshaan split dhahay, qaybtan dambe ayaan rabaa inaan tiro. waa dooranaa marka hore kliga ku siinayaa. klig markii aan ku siino waxaan taabanaa kan oo loo yaqaan delete, ama keyboardka waxaa ka taaban kartaa delete. meeshaas waxaa ka baxay videogii. sidaas ayaa video u kala jari kartaa, qaybtii aad doontana uga tiri kartaa. okay, waxaan kaloo baranaynaa oo cashirkan ku baran doonaa sidee videoga ugu soo dari karaa qoraal. markii aad doonaysid inaad ku soo darto waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay text. meeshaas kore ay ku qoran tahay text, klik ku sii. text markii aad klik ku siiso waxaa arkaysaa qoraalo fara badan oo meesha yaalo. okay, aad bedelan karto. marka waxaan dooranaynaa default text, waa soo jiidaysaa videoga dushiisa ku sii deynay. okay, qoraalka marka sida hadda aad u jeedid nooma muuqdo, maxaa keenayo calaamadan. haddii aad korkiisa keento waa arkaysaa qoraalka dushiisa keenaysaa si qoraalka uu kugu soo muuqdo. qoraalka si aad wax uga bedesho meeshaan ay ku qoran tahay default text, meeshaas ayaad highlight gareynay qoraalkii hore waa iska tiraysaa, kadibna waxaad doonto ayaad ku qoraysaa. waxaan ku qoraynaa hadda walking alone. okay, waxaa samayn kartaa qoraal markii aad qorto marka qoraalkan size-kiisa inaad wax ka bedesho ama positionka aad wax ka bedeshid. tusaale ahaan haddeertaan size-ka haddii aan rabo inaan wax ka bedelo, meesha ay ku qoran tahay font size, calaamadan aan gadaal u celin karaa ama falaaraha isticmaali karaa. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa angleska ana isticmaali kartaa. okay, haddii aad doonaysid inaad qoraalka booska aad ka wareejiso positionka, waa soo jiidi kartaa, soo drag gareynay. intoo kale aan keeninaa wax yar aan yareeyo. okay, qoraalka meeshaas aan keenay. qoraalkan sidee wax uga bedelin kartaa? farta waxaa ka bedeli kartaa farta nooceeda. meesha ay ku qoran tahay font, waa soo furaysaa, kaliya ku siinay oo soo furma. hadda marka hore falaartaan aad taabto farta ka hooseyso automatic igu dooray, hadda waa soo fur. marka waxaan ka dhigi karaa, aan dooran karaa Arial. sidoo kale waxaad bedeli kartaa styleka farta ee leedahay, bold ayaa ka dhigi kartaa, underline. kuwaas inta badan waa taqaanaa qofkii word processing-ka yaqaano uu yaqaanaa. okay, sidee loo bedelaa farta colorkeeda? farta colorkeeda haddii aad doonayso inaad bedeshid, waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay color, kadibna colorka aragtida ka dooranay. okay, tusaale colorkaas oo kale aan ka dooranaynaa, meel banaan klik ku sii. qoraalka haddii aad doonaysid spacing-ka characterska inaad badiso, tusaaleeda waa kala sikanaya, xarfaha ayaa kala sikanayo. okay, haddii qoraalo badan ay yihiin lineska la kala sikay, hadda maadaama hal line uu yahay oo noo shaqeynayo. okay, waxyaabaha kale ee qoraalka aad ka bedeli karto waxaa kamid ah alignmentiga qoraalka, inaad leftiga ama centerka ama rightka oo kale aad dhigi kartid. waxaa kaloo kamid ah oo aad bedeli kartaa qoraalka. waxaa samayn karnaa background. hadda waa ujeedaa background waxaa noo dooran automatic madow ah, waa ka bedelina. waxaan leenahay backgroundka waxaad nooga dhigtaa cadaan. okay, backgroundka size-kiisa waxbaa ka bedeli kartaa, backgroundka height-ka iyo width-ka labadaba. okay, sidoo kaleete roundness-ka geesaha
geesahana waxaan ka dhigi karnaa rounded rectangle meel banaan kaliya aan ku siiyo waa dareemaysaa marka in xoogaa geesaha ay soo qoloocdeen. okay waxaa u samayn kartaa shadow, waxaa u samayn kartaa glow oo 15 marka wax badan oo effectiya ah ayaad ku dari kartaa qoraalka. cashirkeena koowaad ee aan ku baranaynay CapCut video editor halkaas ayaan ku joojinaynaa. cashirka dambe insha Allah la soco. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar. waxaan soo wadnaa waxyaabo kale oo haddii aad koorsadan aan dhameyno koorsooyin kaleeto oo video editing iyo ku saabsan graphic designka, motion graphic, waxaas oo dhan ayaan insha Allah tacaala ku baran doonaa channelkan. haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag, videogana like saar, wixii su'aal ah commentiga noogu soo qor. aad u mahadsantahay.